السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام معان كدب برنامجكينا waxaan kaga hadli doonaa arin aad xasaasi u ah una baahan in laga hadlo isla markaana mudan in dhalinyarada wiilasha iyo hablaha laga baraarujiyo. Dhalinyarada Soomaaliyeed aad ay u taahayaan hadii ay ahaan lahaayeen wiilal iyo gabdhaba. Inkastoo dhibaatada wiilasha la dareemi karo waana mid banaanka iska taal, waxaase moodaa in hablaha dhibkooda ay qarsanayaan. Barnaamijkeena maanta waxayna kaga hadli doonaa insha Allah dhibaatadu dhalinyaradu ay ku qabaan waxa loo yaqaan siigaysiga. Afka Ingiriisigana lagu yiraahdo masturbation, afka Carabigana lagu yiraahdo caadatu sirriya ama jildi umayra ama istimnaa. Dhaqankani waa mid aad u foolxun, wuxuuna sababaa in wiil iyo gabarba ay gacmahooda u galmoodaan, midaasi oo keenta inuu yaraado guurkii xalaasha ahaa. Maxaa yeelay wiil gacantiisa beerka kaga dhacaya ma kula tahay inuu doonayo guur? Jawaabtu waa maya. Siigaysigu waa in unugyada galmada gacanta lala tago, kadibna biyaha ama shahwada gacanta la isaga keeno. Waxaana arintaasi sabab u ah in qofka uu baahi badan u qabo galmada ama uu daawado muuqaalada anshax xumida ah. Haddaba siigaysigu caafimaadka saameyn ma ku yeelan karaa? Dabcan haa, sida aad ka aqrisan karto warbixinada caafimaadka waxay muujinayaan sare u kaca dhibaatooyinka siigaysigu uu leeyahay inay tahay mid aanan xad lahayn. Warbixinada badankood waxay qorayaan haddii uu qofka aad u qabatay xaaladda siigaysiga wuxuu noqonayaa mid qanaacadiisa ay yaraato. yacni xitaa haddii uu afar xaas guursado ma dhaafayo dhaqankaasi ah siigaysiga. Waxaa jira warbixino lagu sheegay in siigaysigu uu yahay caafimaad. Haddaba haddii ay sidaasi tahay, waa maxay taaha ama cabaadka ka soo yeeraya ragga dhalinyarada ah ee hablaha iyo wiilashaba isugu jira? Haddaba waa maxay xanuunka baas ee saameeyay jirkooda? Waxaan dhihi karnaa 10kii wiil ee meel wada fadhiya, 9 ka mid ah ayaa gacmahooda ka sinaysta oo aananba diyaar u ahayn inay guursadaan, iyo hablihii oo iyagana iska dhigay kuwa buur dahab ka samaysan, waalidkii oo aanan ogeyn dhibka iyo rafaadka carruurtooda haysta oo har iyo habeenba carruurtooda ay kaga dhammaan la'san yihiin suuliga. Rag iyo dumar badan ayaa ku andacoonaya in siigada ay kaga gaashaantaan ku dhicidda zino iyo faaxisho, laakiin waxaba ka hoos baxsan in tanina ay tahay faaxisho midii ugu weynayd, maxaa yeelay gacmahooda ayay la galmoonayaan. Haddaba barnaamijkani waxaan ku soo qaadan doonaa sida dhaqankaasi foosho xun dhalinyarada wiilasha iyo gabdhahaba isaga dhaafi karaan. Inkastoo haddana aad dhaqan ka dhigatay, waxaase hubaal ah qofkii aad la weynay si dhab ah u gargaar weydiista inuu ka samata baxayo dhibkaasi. Inta aan u gudagelin qaabka ama nidaamka aad isaga joojin karto dhaqankaasi aad gacantaada kaga ashahadisay, waa run, waa sidaasi gacantaada way ka soo dacwootay wiil yahow ama gabar yahay. Caadaysiga siigada waxay keentaa dhowr dhibaato oo caafimaad dara ah oo ay ka mid yihiin daal iyo tabardari joogto ah, xanuun kaaga dhaca dhabarka qaybtiisa hoose heer aad dhakhtar u tagto, timaha oo yaraadaan ama daataan, dareen la'aan iyo biyobax degdeg ah, howlgab dhanka dareenka kacsiga kugu dhaca, aragga oo caad kaa yeesha, waqtiyada hurdadaada oo aad u yaraata waxaana lagu magacaabaa insomnia, bisqinleyda ama xaniyaha oo ku xanuuna, xanuun iyo casiraad joogto ah oo laga dareemo maqurmiskeedka ama dabaqanaanta, qofka oo ku walfa ama qabatima dhaqankani, welibana waxaa laga yaabaa inaadan dhaqankani weligaa iska goyn weydo xitaa adiga oo guursaday. Wuxuu kaloo keenaa waxa loo yaqaan semen leakage oo ah in biyaha ay soo dareeraan iyadoo aan wax dareen kacsi ah uusan jirin, sida kaadida oo kalena ay kaaga soo daataan. Dhibaato nafsaani ah sida hilmaamidda iyo xifdin la'aanta, iyo inaad xiisayso ama aad qabatinto daawashada muuqaalada foosho xun noocay doonaanba ha ahaadaane, iyo kuwo kale oo aan halkaani ku soo koobi karin. Dabcan 11kaasi qodob 10 ka mid ah dhammaantood waad isku aragtay, laakiin dhibaatada taagan waxay tahay inaadan diyaar u ahayn inaad xaqiiqda istusto. Haddaba sidee isaga diin kartaa dhaqankaasi? Ugu horeyntii jooji daawashada muuqaalada dareenka kicinaya. Waxaa habboon inaad naftaada runta u sheegto, go'aanna aad ku gaarto sida aad isaga xiri lahayd janaalada ama websaydyada muuqaalada foosho xun la soo geliyo adigoo iska xiraya ama blog saaraya. Waxaa jira wadooyin badan oo aad isaga xiri karto websaydyada ama tviyada muuqaalada foosho xun la soo geliyo ee beenta ah, oo ay ka mid tahay inaad la xiriirto shirkadda internetka bixisa oo aad ka codsato inay kaa xiraan muuqaaladaasi. Sidaasi oo kale waa inaad ka fogaataa daawashada filimada ay ku jiraan muuqaalada dareenkaaga kicin kara oo afka Englishka lagu yiraahdo explicit contents. Ma ahan muuqaalada galmada oo kaliya, waa inaad ka fogaataa wax waliba oo keeni kara dareenkaaga rabitaanka galmada ah. Ha ku nagaadin suuliga ama musqusha.
ogow walaal odagii shaydaan ahaa inuu suuliga kuu fadhiyo markaad musqusha gasho isku day inaad sida ugu dhaqsiyaha badan kolkaad danahaaga ugu soo dhammaysato inaad dhaqsi ugu soo baxdo ha ku nagaadin suuliga dhexdii haddii aad ku nagaadana odagii shaydaan ahaa wuxuu kugu qalqaalin inaad faaxishadaasi samayso marnaba ha iloobin in odaga shaydaan inta aad samaynayso ficilkaasi siigaysiga ah uu kuu qurxinayo kadibna markaad faaxishadaasi dhammayso waa uu kaaga baxayaa waxaad dareemaysaa inaad fuulxumo ku kacday waana dhaqanka shayddaanka oo wax waliba uu xumaan ah kugu riixayo kadibna uu kaaga baxayo adigana aad ka shallayn doonto haddaba sidaasi oo kale ayuu aakhirana ballanta kaaga baxayaa is-ogow kana fogow inaad moobeelkaaga la gasho suuliga maxaa yeelay laga yaabay inaad waxyaabo dareenkaaga kicin kara aad ka daawato noqo qof mashquul ah ogow markaad kaligaaga guriga joogto waa fursadda uu shayddaanka kuugu soo weerartegi karo wuxuuna aad u jecel yahay inuu kugu qalqaaliyo ficilkaasi xun sidaasi darteed markaad kaligaaga tahay isku day inaad ismashquuliso haddii aad shaqo leedahay shaqadaada aad oo gurigaaga goor hore ka sii bax ama shaqooyin kale isku mashquuli iska fogee muuqaalada aan anshaxa u wanaagsanayn waa inaad iska fogaysaa muuqaalada anshax xumida ah ee guriga ku yaalla ha taaban xubnahaaga kuu gaarka ah isku day inaadan taaban xubnahaaga kuu gaarka ah ka fogow taabashada falfalaadka ah ee aad ku samaynayso xubnahaaga kuu gaarka ah sababtoo ah haddii aad taataabato odagii ibliis ahaa gacantaada ayuu kula seexinayaa si aad ugu sinaysato adigana aad ka shalaayi doontaa iska beddel dhaqankii hore bilow dhaqan ka duwan midkii hore oo waxaad bilowdaa wax akhrinta gaar ahaan qur-aanka buugaagta sheekooyinka cayaaraha kubadda cagta si aad naftaada u mashquuliso waa in aad guursataa haddii aad awooddo inaad guursato fadlan maantaba u dhaqaaq waa xalka keliya ee ugu dhow inaad ka fogaato siigaysiga wiil yahow ama gabar yahay guurku waa gaashaanka sharta iyo sinnada oo dhan go'aan gaaris waa inaad go'aan dhab ah ka gaartaa sida aad ugu fogaan lahayd ficilkan xun ogoona wixii alle si daacadah loo weyddiisto inuu alle kugu garabgalayo wiil yahow ama gabar yahay ogow shahwadaada aad gacantaada bannaanka isaga keenayso inay yihiin carruurtaada laga yaabo inuu ku jiro mid dakhtar ah ama caalim weyn ah ama injineer ah ama qof dunida wax la mahdiyo ku soo kordhiyo ha qasaarin ha dilin u raadi meel xalaal ah haddaba waxaan kuu sheegayaa daawada ugu dambaysa oo aad isaga dayn karto siigaysiga maxay kula tahay daawada waa daawo sax ah laakiin inaadan ku qancin ayaa laga yaabaa ogow walaal salaadda aad dukato ma ahan salaad sax ah sidaasi darteed ayaad u samaynaysaa siigaysiga ama faaxishada oo dhan haddii ay salaadaada toosnaan lahayd ma siigaysan lahayn laakiin salaadda aad dukato ayaa wax weyn ka qaldan yihiin alle ha ka aqbale maxaa yeelay alla weyne wuxuu leeyahay inna as-salaata tanhaa 'anil fahshaa'i wal munkar xaqiiqdii salaaddu waxay hor istaagtaa oo kuu diiddaa faaxishada iyo dembiyada waaweyn nuuca ay doonaanba ha ahaadeene sino galmada aan bannaanayn oo siigada ay ka mid tahay iyo munkarka shirkiga iyo kufriga oo dhan waxyaabaha laga dhaxlo waxaa ka mid qofka marka oo kale u siigaysto in maxaa la lahaa isheega oo raaxa helo tan kale xataa dumar u baahanaynin sababtoo ah gacantiisa ayaa dumar oo isticmaala waa laga yaabaa in qof dumara xitaa uu u baahan waayo lacalla inkiis haddii xitaa qof dumara oo helo in uusan ka qaban karin kuwaasi waa dhallinyaro soomaaliyeed oo sheegaya dhibka ay ku qabaan waxa loo yaqaano siigaysiga haddaba walaal haddii aad noloshaada rajo weyn ka leedahay fadlan ka fogow siigaysiga ha qasaarin ha dilin u raadi meel xalaal ah إن العادة السرية عند المرأة أخطر من العادة السرية عند الرجل. العادة السرية عند الرجل ما فيهاش هذه المخاطرة. المرأة حينما تضع يعني إصبعها أو تضع شيئا، بعض الناس تضع أشياء وهذه أشياء هذا تخاطر، خصوصا البكارة يعني مسألة حساسة، وهذا الغشاء يعني ممكن أي عبث به يضيعه ويعرض المرأة للتهمة. هتقول لهم انا كنت والله بعمل كده، مش هيصدقوها، ولا بد ان يعني عملت علاقه محرمه مع بعض الشباب، ولا بد كذا ولا بد كذا، فيعرض الانسان نفسه لتهمه الزنا. المراه تعرض نفسها لتهمه الزنا يعني، فتفضح نفسها وتفضح اهلها وتكون مصيبه، وربما بعض الاهالي بيعتبروا هذه بلوى يمكن يقتلونها.